odayaasha beesha Arab oo nabad dirayo doonayaan in dowlad deegaanka lagu heshiiyo laakiin maanta waxay qirteen in Liverpool lagu laayay dacwale waxay yiraahdeen dadka meesha lagu laayay in ambalaasyada qaadaya ayaan markaasi aan ka mid ahayn dadkii qaadaya aan joogo annaga wax ka qaadnay meydadka ma jiro nin dharka laga bixiyay asgar dharka laga bixiyay moosan jirin annaga markaasi wax ka qaadnay marka been baa nagala sheegayo wax maana jarjaray horta waxay qarteen in ciidamada Liverpool lagu laayay dacwale taasna waa arrin soo iftay oo muddooyinka la soo dhaafay waxay dhahayn wax Liverpool la laayay malahan Liverpool ayaga xasuuq geystay raalada arrinta marka way soo taraysaa taas xogtaas waa falqeyn doonaa ninkaas soo hadlay waxaan kaloo ka hadli doonaa dacwale iyo aageeda hadda sidee wax yihiin oo soo gudbi doonaa canfartii iyo markaasi ololkii maalmahan uu ka joogsaday maanta laakiin uu maanta socdo biyo maalin olol oo socda xaalka marka uu qasan yahay waxaan kala soo qaadan doonaa xasan sheekh maxamuud oo haddana masar ku wajahan waa la yaab muddo laba beri gudaheeda ay madaxweynihii masar iyo Ethiopia iyo Uganda iyo meel kasta isku maray dadku waxay leeyihiin xasan sheekh ma ahan asaga waxaan socodka badan san u ordaynan 70 jir ma ahe ma dhalinyaro noqdo adag waa la isweydiinaya bal aan soo gudbinay marka hore aan ku hormarno horta dadka deegaanka ee dacwale iyo aagaasi nabadoonadooda nabad ay ku baaqayaan haddana waxaan u maleysaa in wax badan la inkirayo waxa ka mid ah in marka hore dheen horta Liverpool la xasuuq ma jira Liverpool ayaga inta noo yimaadeen na xasuuqeen ee dadkeena laayeen ayaa halkaas marka lagu kala tagay oo dhibaatadu ay ka dhacday laakiin Liverpool in ayagu xasuuqeen oo hadalka cagjar ay daba taageen qaar dadka dhagaha laga guray oo la jarjaray xubnaha taranka laga guray ayay markaasi daba taageen waxay yiraahdeen arrintaas waxba kama jiraan ma jirto qof dharkiisa xataa laga bixiyay xabadihii bisa ku dhacay dharkooda lagama bixin horta taas waa qirasho in dadkaas horta meesha lagu laayay Liverpoolska qirasho waa horena u sheegnay in 40 nin oo Liverpool in 5 nin oo dhaawac bis ay ka fakatay 35 kalena aan la haynin dagaalka iyo caraduna meesha oo ka dhashay wax kale la isku qabto beelaha wada degada Arab iyo reer Isaaq ee ogaadana iyo Isaaq ka kala dhashay haas dagaalano oo waxa isku qabtaan dhul isku qabtaan si walba oo dagaalama waa dagaalami karaan laakiin dagaalka meesha oo xalay leysmada Liverpool iyo gudoomiyaha amniga iyo caale in la dilay waa la qarinayo laakiin maanta afkooda ka soo fakato odayaasha hadda wixii ka dambeeyay xal in la gaari karo oo malaynaa oo nabad la qaadan karo maadaama ay qirteen in horta marka hore Liverpool laayeen kadib arrintu waxay sheegeen in nabadu ay u baahan yihiin ilaa hadda nabad ay doonayaan cagjarna ay ka doonayaan oo ka soo jawaaba nabadda ay beesha Arab ku baaqayso waxay leeyihiin dhuunta nagoola taagan yahay ma dhaqaaqi karno ciidamada Liverpool aan dul dhooban wax rabno ma samaysan karno nolosheena cariiri way ku jirtaa nabadii inaan helnaan doonayna marka waxay leeyihiin qof dhuunta looga taagan yahay wax dhaqaaqa ma samayn karo horumar ma samayn karo ma shaqaysan karo marka waxa la 100 ambalaas soo socoto 100 cabdi bala soo socoto xaalku waa adag yahay waa nagula soo socon leeyahay marka waxay dhamaa huyan weyna waan hurdi weyna marka waxay ka hurdi waayeen ka hoy waan Liverpool waa horta Liverpool waxaan dhihi lahaa qaabkan dhibkan muusan jirin waxa keenay dadkii laayay dadka beesha Arab oo wax suuqday ayaa dhibka keentay maantana Liverpool jawaabka falcelinta ka sameeyayna dad bay laayeen marka xasuuqii dhacay horta in dib loo raacin in la dhaho maxaa la yiraahdaa dadkii dhibaatada meesha ka dhacday yaan markale la sameyn oo dadkii waawal xasuuqay yaan dadka la dilin oo nabadda hala qaato hana la isku soo dhaweey wax walba la isku qabto wala xalin karaa ummadda Soomaaliyeed la isku keeno dagaal hala daayo dhibaatada hala iska daayo hala isku keeno baaqa ay soo jeedinayaan shaarkan Itoobiyaanka ugu yeena laga dajiyo cagjara ka daji kara iyo Liverpool waxay dhig karaan inay shaarkan waxa ugu iska daaya calanka Soomaaliya iyo dowlad deegaanka qaata kaas ay idin anfaco iskana daaya shaarkan Itoobiyaanka iyo waxna ka dawardiisaan inta Itoobiya isku riixaysan jis lama gaaray Itoobiya ka soo laabta dowlad deegaanka waxay kala dhaxmareen waa dad Soomaaliyeed qabiilkii naxta ku jira qabiilka iska daay qabiilka Isaaq xataa ku jira dadka dowlad deegaanka oo maxaa la yiraahdaa ciidamada Liverpool ku jiraan oo maamulada ku jiraan marka waxaan dhihi lahaa ha laga soo laabto dhibaatadaas dibna ha loogu soo laabto wada hadal nabadan ha la qaato wixii ka soo koraalkan ku soo gudbi doonaa in ciidamada Liverpool roondada ku sameeyaan dhulkaasi iyo ambalaasida faraha badan la geeyay sheegay mar walba idin soo gudbi doonaa waxaan u gudbaynaa horta nimanka canfarta biyaha hadda loo bedelo maanta xaalkii maalmihii la soo dhaafay ee buuraha qarxay maanta biyo isu bedeleen biyihii ayaa caay marka dhulkii waa iska go'aya biyo ka soo boodayba oo biyo farina tubal la gooyay marka tubada markii madaxa laga jaro biyada si u duulay amal u duulay marka canfartii jabka wili uu haystaa dhulkii la degnaa iyo guri adiga aad deganta ka hor hoosteeda haday biyo ka yaraan biyo tubac ma la socdo dhahay haday gurigaada ka yaraan goor ma sii degnaa kartaa guriga canfartii markii qaxa ilaahay dabadhig kol baan saas leeyahay dhulkan waxa way canfartii degada kolba dhul ay dulmi ku yimideen ama dhul ay dadka qabsadeen ma aha dhul ay leeyihiin sababtoo waxa way kuleelkan iyo dhibaatadan iyo qaxan iyo barakacan iyo orodkan uma imaan lahayn dhul ay leeyihiin oo sax ay degan yihiin degnaa lahaayeen
marka xaalku ku culisahay canfarta dhanka Mareykanka hadda tagno wali ayadana duufaanta way jirtaa walow maanta ay ka yartahay maalmeel soo dhaafay wixii duufaan jiray markaasi maalmeel soo dhaafay Basbel iyo Hollywood iyo magaalooyinka waaweyn Los Angeles iyo maxaa la yiraahdaa California iyo maxaa la yiraahdaa New York maanta waxa umalaysaa inay yara degan tahay laakiin wixii dabeela qaaday waa gubteenba dab caadi ah ayaa markaasi dhulka lagu ku daray waxa la sheegay in uu ka badbaaday meel lagu dhigi jiro Quraan maxaa la yiraahdaa lagu dhigi jiray oo markaasi guri Quraan lagu dhigi jiro qurux badan inuu ka badbaado la sheego waa meel madraso wax lagu bari jiray inta dadka qaar ay leeyihiin war halkan ma ahan meeshaas Mareykan ma waa London oo had ka hor wax ka gubteen dadka waxba isla weydiinaa laakiin waxay leeyihiin gurigaas waa badbaaday almuhim waana meel madraso wax lagu baran jiray marka arki doona ayadana wixii ka soo kordho dhanka Ethiopia hadda tagno Xasan Maxamed Abdul wuxuu ku sii wajahay Masar wuxuu leeyahay Abiy Ahmed waxaana kala soo kulmay saas uu yiri halkaas xaaladdu maraysaa daa ogow marka dawladda Masarna waxay leedahay ma suura galayso in mar walba la yiraahdo maxaa la badda cas Ethiopia tagaysa ma tagi karto annaga taagan cid aan bad lahayn badda cas ma iman karto taasna waxa way xaalad kale ka taagan oo cabsi iyo dagaal ayaa ka taagan oo waxa leeyahay Masar badda ayaa ciidamo geed doonta hub iyo saanad military wala tagi doonta marka Ethiopia Masar halkaas ku farsaari doonaan cabsidaas iyo dagaalkaasna meesha ku iman doona marka dawladda Masar hanjabaadeeda iyo Xasan Maxamed oo wali ku wajahan oo arki doona waxay kala soo kulmeen halkaas la tago oo u sheegay laga Abiy Ahmed dadka qaarna waxay leeyahay Xasan Sheikh saxda ma ahe ama nin kala dhar kala hogaya oo lagu qiyaanay marka Xasan Sheikh waxa waxyaabo badan oo lagu arki jiray lagu arkay kolba Soomaali ama dhiiqo gelin doona dhiiqada asaga sheegi jiray oo gelin doona ama uu ka badbaadin doona wax lagu farxo keen doona arki doona wax soo kor barnaamijka Garamel Garcia inta barnaamijka lagu doono fi amaan Allah